marka loo fiiriyo kubadda cagta haatan waa mid xasaasi ah taasoo aan ka marnayn qaladaadka iyo dagaalka garoonka gudihiisa ah marka loo fiiriyana rabshada garoonka gudihiisa waa in xilligan la xasuustaa Sergio Ramos kaasi oo jecel in inta badan uu qaato kaarka digniinta ah amaba kaarka cas ee looga baxo garoonka waxaana laga yaabaa in Ramos ay riyow tahay inuu qaato wax ka badan 2 jaalle gudaha kulanka laakiin nasiib darro xidigan isaga ahayn ayay taasi u rumowday ka oo kulanka gudihiisa ku qaatay 3 kaar oo digniinta ah ama calaamada jaalaha kadibna waxa la siiyay kaarka cas sida ay ku dhici kartaa in xidig la siiyo 3 kaar oo digniin ah kadibna loogu daro calaamada casaanka ah sida caadiga ah kubadda cagta sharcigeeda waa in 2 jaalle xidiga marka uu qaato la siiyo kaarka casaanka ah amaba kaarka cas uu qaato marka ugu horeyso uu galo qalad bahalnimo ah laakiin tani ayaa dhacday mid ka mid ah kulamada kubadda cagta waxaana ay noqotay dhacdo qof walba uu la yaabo inta aanan guda galin haddii channelkeenu uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo nagu soo biir rixna gambaleelka digniinta si durbay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha leh oo aan bartan soo galino like sar muuqaalkan una share garay asxaabtaada wad ku mahadsan tahay soo booqashada barteena waxaa jira kubadda cagta hal xidig oo qaatay 3 kaar oo digniin ah kaasina waa ninka reer Croatia ee Josip Simonovic waa xidiga kaliya ee sidaas sameeyay 3 kaar oo digniin ah ayuu qaatay kulan gudihiisa sida ay kubadda cagta taasi kaga dhici kartaa waa su'aasha la isweydiinayo waa sakee garsoorahaasi waalan ee 3 kaar oo digniin ah bixiyay kulan gudihiisa garsooraha lagu magacaabo Graham Paul oo ah garsoore ka soo jeeda wadanka England ayaa dhacdadaas sameeyay sanadii 2006 wuxuu ahaa mid kamid ah garsoorayaasha ugu wanaagsan waxa uu dhexdhexaadiyay 2 kulan oo kamid ah koobkii adduunka ee 2006 labada kulanna wax dhibaato ah ma aysan jirin oo si cajiib ah ayuu dhexdhexaadiyay laakiin intaasi kadib kulan dhexmaray wadamada Australia iyo Croatia ayuu kala soo muuqday sheeko la yaab leh oo ilaa hadda aan la iloobin qaybtii labaad ay ahayd markii la yaabay oo ay dadku dhan madaxa gacanta saarteen markii Graham Paul dhameystiray kaararkiisa digniinta ah ee uu siinayo ciyaaryahan Simonovic waliba 3 kaar oo digniin ah Josip Simonovic waxa la siiyay kaarka digniinta bilowga ciyaarta waxaana ay ahayd markii uu qalad ku galay xidig ka soo horjeeda Paul ayaa awooday inuu ciyaarta ka saaro marka uu siiyo kaarka labaad ee digniinta ah laakiin ciyaarta oo dhamaad ah Simonovic wuxuu qalad ku galay xidig kale oo Australia qayb ka ah Graham Paul oo ahaa dhexdhexaadiyay kulanka ayaa mar kale jeebkiisa gacanta geliyay oo la soo baxay kaarka digniinta wuxuuna ka saaray wajiga ciyaaryahan reer Croatia qof walba ayaa markaasi daneynayay in xidigan uu garoonka isaga baxo maadaama sharcigu uu ahaa in xidigkii qaato 2 kaar oo digniin ah ayuu raacayso calaamada casaanka ah balse nasiib darro Simonovic wuxuu ku sii nagaaday garoonka isagoo ka sii mid noqday xidigaha ciyaaraya Paul ma uusan daneynaynin in xidigan uu siiyo calaamada casaanka ah daqiiqado yar kadib Simonovic wuxuu garsoore Paul u sheegay inuusan isagu ahayn mid macquul ah oo aad ayuu xidigu ula yaabay in isagoo qaatay 2 kaar oo digniin ah wali uu garoonka ku sii jiro balse Graham Paul ayaa u sheegay Simonovic inuu ka daayo hadalka ciyaartan uu sii wato sidaa darteed Paul waxa uu la soo baxay kaarka digniinta ah marka loo fiiriyo hadalka xidigaasi waxaana uu siiyay kaarkii 3aad oo jaalo ah miyay taasi tahay wax la rumaysan karo xilligaasna Graham Paul waxa uu jeebkiisa dambe ka soo bixiyay kaarka casaanka ah waxaana uu ciyaarta ka saaray Simonovic ciyaaryahankii wadanka Croatia dhacdadaas ayaa noqotay mid saxaafadu ay si weyn u buunbuunisay garsoore Graham Paul markii wax laga weydiiyana wuxuu hadalkiisa ku soo koobay in isagu bini'aadan yahay qaladna uu ka dhici karo kumanaan jeerna uu arintaasi iyo wax la mid ah ka hadlay miyaad hore ugu fikiraysay inuu jiro xidig 3 kaar oo digniin la siiyay hal kulan gudihiisa magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Shaafinho aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan